السلام عليكم كوسا ذواذا موكال أسب حدها هرا يظلش ديسا إبراهيم تراوري ووهو ذا شيء أفر توبن مارسو كن سغال بقول سديد سديتن ما اللي رح دوكيرا تاس أو كتعلق دقمد بندقوي قبل كمهون دلك بوركينا فاسو أبي هيس هو يديس ماكا يدودو سيوين لوما أوغا تراوري ووهو كبدها الرورتا رير مييغا kuwaas oo ku koray deegaan xasillooni darro iyo aqabado badan wuxuu waxbarashadiisa hoose iyo behee ku kacatay deegaanka keera iyo bundukoy kadibna wuxuu u wareegay magaalada bobodulaso si uu uga mid noqdo ardayda dugsiga sare markii dambe sanadkii 2006 wuxuu galay jaamacadda Wagadugu halkaas oo uu ka bartay uluumta sayniska gaar ahaan geology bulbaris wuxuuna ka kalin jabiyey 2009 isagoo darajo fiican helay intii uu jaamacadda joogay Traore wuxuu ku biiray ururada ardayda gaar ahaan Association of Muslim Students ururka ardayda muslimiinta iyo ANEB ururka qaranka ee ardayda Burkina Faso halkaas oo uwaan ku noqday inuu difaac oo saaxiibadiis ardayda ah markay dhibaato ku soo wajahdo markii uu jaamacadda dhamaystay wuxuu go'aansaday inuu ku biirto ciidamada sanad khaas la mid ah u dilaatii salad sadid wuxuu ku biiray ciidanka militariga Burkina Faso shaqo military iyo hogaamin siyaasadeed markii uu galay ciidanka Traore wuxuu helay tababar sare oo ay ku jiraan tababaro dibadda ah sida Morocco iyo ilo kale waxa kale oo la sheegay inuu la xiriir lahaa utub military oo khaas ah oo loo yaqaan Cobra laakiin arrintan waxa khilaaf ku jira warar kala duwan qaar ayaa sheegaya inuu ka tirsanaa qaarna diidaan inuu si rasmi ah ula xiriiro sanadkii 2014 Traore waa la dallacsiiyey hilka lieutenant sare kadib hawlgallo military iyo hawlgallo kadanka kooxo hubaysan ee dalka ka dagaalama intii uu dhahaysay sanadaha 2008 iyo 2019 Traore wuxuu ka mid noqday ciidamada hawlgalka nabad ilaalinta ee MINUSMA Mission des Nations Unies oo Mali halkaas oo uu ka kibkaatay dagaallo kadan ah kooxo hubaysan sidoo kale gudaha Burkina Faso waxa haya dagaallo baaxsan oo kadanka ah kooxaha islaamiyiin ah iyo maleeshiyaadka hubaysan kuwaas oo ka hawlgala gobolka waqooyiga iyo saxaafadda xuduudaha Traore iyo ciidankiisa wayay ka mid noqdeen askarta la dagaalanta amni daradaas sanadka 2020 Traore waxa loo dallaciyey darajada kabtanka iyo ciidamada Burkina Faso markii ay dadka ciidamada ku dibtuunayeen arrimaha mushaarka kalabka iyo taageerada dawladdu siin wayday Traore iyo xubno kale oo ka mid ah ciidamadii hore ayaa bilaabay inay dhaliil u jiidiyaan hoggaanka kaadoonka madaxweynenimada iyo xilligan Burkina Faso waxa sanadihii dambe ku dhacay xasillooni darro siyaasadeed iyo amni darro ka dhalatay kooxo hubaysan oo dalka qaybo badan ka talinaya bishii Janaayo 2022 dawlad military ayaa afqambi ku samaystay waxaana meesha laga saaray madaxweyne Roch Kabore taas oo keentay in ciidamada hoggaanka dalka ay gaanta ku digaan waxaa la aasaasay urur military oo lagu magacaabo Patriotic Movement for Safeguard and Restoration PMSR si kastaba hoggaamiyihii ururkaas Paul Henry Sandaogo Damiba waxaa lagu idiyey inuu ku guuldaraystay xasilinta amniga waxaana kaaduun military oo gudaha ah oo uu hoggaaminayay Traore lagu sameeyey bishii September 2022 taariikhda 30 September 2022 Traore iyo ciidamo la taageersan ayaa afqambi kaabeeyey waxayna ku guulaysteen inay meesha ka saaraan Damiba markii la afqambiyey Damiba 6 Oktoobar 2022 Traore wuxuu si rasmi ah isu magacaabay madaxweynaha ku meel garka ah
interim president ee Burkina Faso, isagoo sidoo kale noqday madaxa sare ee ciidamada qaranka. Traore, woohoo! Ku tilmaamay hoggaankiisa mid ku salaysan fikirka Pan-Africanism, midnimada Afrika, madaxdiinka dana faragelinta caalamiga ah, iyo niyad wanaag ku aadan madaxbannaanida siyaasadeed ee dalalka Afrikaanka. Laga bilaabo 2022, dowladdiisa waxay samaysay tallaabooyin badan oo ay ku joojiyey joogitaanka ciidamada Faransiiska ee dalka, iyadoo ciidamo Faransiisa laga saaray Burkina Faso. Waxaa sidoo kale la arkay in Traore uu bilaabay in uu hoojiyo xidhiidhka siyaasadeed iyo militari ee uu la leeyahay Ruushka iyo kooxo kale, sida Wagner Group, si loo beddelo tiirarka taageerada caalamiga ah. Inkasta oo uu ballan qaaday in doorashooyin dimuqraadiya la qaban doono xilligii kala guurka, transition, haddana amniga dalka oo humaaday iyo xaaladaha gudaha ayaa sababay in waqti doorashooyinku dib loo dhigo. Intii uu xilka hayo, waxaa jiray dacwad iyo eedeymo ku saabsan cadaadis ku wajahan warbaahinta, xayiraad, iyo in la aburiyo mucaaradka siyaasadeed. Sidoo kale, sanadkii 2024, dowladda Traore waxay dishaa wasiiro, dib u kala saartay gollihiisa wasiirada, iyo in xukunka la joojiyo in doorasho lagu qabto, iyadoo la sheegayo in amniga dalka uusan weli diyaar ahayn. Taariikh ahaan, sanadkii 2024, golaha dib u eegista qaranka ayaa ogolaatay in muddada kala guurka, transition, la kordhiyo ilaa 5 sano. Taas oo u ogolaatay Traore inuu xukunka sii hayo muddo dheer. Sidoo kale, xilligii uu xilka hayo, Traore iyo maamulka Burkina Faso waxay ballanqaadeen inay diyaarin doonaan tallaabooyin lagu hoojinayo amniga, dib u dhiska ciidanka, oo ay isku dayayaan inay yareeyaan saamaynta kooxaha hubaysan ee dalka ku sugan. Waxaad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Fadlan subscribe, like, share. Mahadsanid.